السلام عليكم حاليدها سافي أحمد شيخ ما أنتو حاي ما دولك مبسا جروب كونسا سيتي ما شاء الله على دي جري وان سو أرك دولكي وهدول أد وناكسن سيدا نورشة شرعية ديس يو محالدها وتوسينهين يو ودوينكو وادسينهين انت بدن waa la iibsaday anagana insha Allah waa imaana waana ku qanacna maanta markuu Ilaahay dhabarka naga soo dharbaxaan iibsanayna insha Allah magacaygu waa Sahra Ali maanta waxaan imid kambaniga Mabsa iyo dhulalka uu gadaayo dhul ganacsi iyo dhul deegaan intaba maanta waan soo aragnay waana ku qanacnay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in idinkuna hadda timaadaan asaan uga helnay aad uga heli doontaan markii Ilaahay idmana waa gadanaynaa insha Allah magacaygu Cabdixakiin Maxamed Cali maanta waxaan dib ugu soo noqday shirkadda Mabsa Group Agency oo shirkad weyn oo dhulka gada ah horeyna dhowr mar horaan u imaaday dhulal aan familka u gaday iyo mid aan gatay waa jiray maantana qof aan wakiil ka ahaa oo shirkadda saasan ku soo raacay sida caadiga shirkadda iyo dhulkay gada marka u imaadid qofka ku cusuban soo dhaweyn badan oo kala kulmaa dhulkana aad loogu qanacayo cid walba imaaday oo ku qanacda dhulka laba qaybood ahaa qayb ganacsi oo loogu talagalay ganacsiga iyo qayb deegaanka loogu talagalay labada waa soo aragnay aniga dadka wakiilka ah waxa uu raadinaya dhulka deegaanka dhul aan ku qanaco oo meel fiican ku yaala oo soo qabtay dadka Soomaaliyeed jecel in maartay dhul ganacsi iyo deegaan ah oo jawi iyo maartay meel fiican ku yaalo mar walba raadinaya una baahnaa waxaan kula talin lahaa inay shirkadda Mabsa Group ay la soo xiriiraan ee dhulkeeda maal gashtaan waxyaabaha intaan shirkadda la macaamilayay isoo jiitay oo ku qancay markii dhulka laga soo tago waxa kamid ah qaabka soo dhaweynta iyo maamulka ee dadka ma aragtay ee ula xiriirayaan oo la hadlayaan qofka u qancinayaan Soomaalida degan Kenya iyo dibadda jira in badan dhulal iyo ma aragtay waxyaabo noocaas dhibaato kala kulmay waxaan dhihi lahaa meesha ugu habooneed ee kambaniga ugu haboonaa dhan aaminaad iyo ma aragtay dhan macaamil intaba inay Mabsa Group tahay inay la soo xiriiraan ma aragtay aad u dhiirgelin lahaa